wayahan waxa aad u soo kordhay sidaan horeyba u sheegnay afduubka iyo shabakado dadka afduuba oo muxuu ahaay madax furasho weydiista mardila siyaabo kala gedisan u dhab haddaan isweydiina asbaabtu maxay tahay way badan tahay laakiin dhowr ka mid aan soo qaadanayna asbaabtu way kala duwan tahay asbaabta waxaa ka mid ah asbaab amniya oo waxa dhacaya dadka qaarkood inta la dafo oo la afduubto raad iyo raq meelay dhigeen in la waayo qaarna meydkooda meel laga soo helo arinta iyada ah muddo ka hor bay dal ku soo korodhay falalka noocaas qaar ka midana waxaa lagu eedayaa oo lagu tuunsan yahay laamaha amniga qaar ka mid ah gaar ahaan dadka mutahamka la tuunsan yahay oo ay ahayd sida nidaam ahaan u degan inay mariyaan maxkamad mariyaan oo dambiga ruuxa lagu soo oogo bedelkeeda waa la qaadayaa waa la dhuuminayaa waa la waayayaa ama meydkiisa meel laga soo heli ama marad iyo raqd midna la heli maayo taa way dhacdaa waa mid aad looga qayliyay oo mas'uuliyiinta iyo gaar ahaan muslimiinta inta badan ku dhacday dhalinyaradooda taa wax badan hadda lagama qaban karo talabaadi wax weeye asbaabta keenta waa asbaab dhaqaale iyo kasab يعني waxa weeyaa xoolaa laga raadiyaa afduubka oo iyada lafteeda noocyay ku timaadaa noocyada waxaa ka mid ah almunakafaat tijaariya inta badan waxay ka dhacdaa ragga ganacsatada waaweyn ganacsi ama fursad ganacsi baa la isku garbinaya markaasaa la iskhaarijinaya waxaa la isu isticmaalayaa shabakadahan wax dila iyo gaangiskan iyo waxana la isu isticmaalaya inta badan waxay ka dhacdaa tujaarta waaweyn oo mesela fursadaha ama kontradaha dawladdu bixiso ama fursado tijaaro oo ganacsi xasad ba dhex maraya way is arkahayaan kadibna inay iskhaarijiyaan baa dhici karaysa iskhaarijinta marka waxa la isu isticmaalayaa si qarsoodi ah way dhacdaa sidaas oo kale dafida noocaas way ku timaadaa oo ujeedo dhaqaale waxaa ka mid ah ujeedooyinka iyo asbaabta keenta waxaa ka mid ah alxusuul calaa fidya maaliya ruuxan inta la afduubo in markaas laga qaato madax furasho inta badanna waxaa sameeya bulshada qaybaheeda hoose oo baahan baa sameeya yani ruuxa isleeyihiin waxoogaa waxbaad ka helaysaan ama isagii bay afduubayaan ama ilmihiisa ama xaaskiisa ay afduubayaan meel bay gashanayaan kadibna waxay leeyihiin dadkaagii la hadal waxaasi waxa soo bixiya haddii kale waa khaarijinayna waa nidaamkii ninkii la dhihi jiray bagafe hawshiisii way jirtaa iyadoo weliba waxay hadda waddankan aada ugu sii xoogaysanaya arrimaha noocaas oo kale markay gaajadu sii daraato waad ogtihiinoo corona siduu u dhacay dhaqaalihii waddanka wax badan baa burburay soo maa weliba dabaqada hoose iyo bulshada qaybaheeda hoose ee fuqarada ah way u sii nugul yihiin hoosu dhaca dhaqaale ee waddanka ku dhacay sidaasoo kale markay dhacdo in badanoo dadka ka mida si ay nolosha u ta'miiniyaan waxaa marka shaydaan ka dhaadhicinayaa wax afduubo shabakaad baa samaysmaya sidaa wax ku raadiya markastoo gaajadu badatana daahiradaasi aad bay u soo baxdaa ayib waxaa kaloo iyada mad soo baxdaa sidoo kale marka doorashadu soo dhowdahay oo kale oo dhaqaalo la doonayo in muxuu ahay la sameeyo waxaa asbaabta ka mida keenta oo muxuu ahaay dawaaficda ka mida muxuu ahay munaafasaadka siyaasiga ah oo qolyahan siyaasadda isku hayee siyaasadda ku tartama ayaguna waxay isu dabaraan inay si hoose isu khaarijiyaan way dhacdaa iyadana oo muxuu ahay munaafiska kula tartamay ama ragga wada isaga kuwada muhiimka
in si hoose loo khaarijiyo iyadana way dhacdaa asbaab siyaasi way markaas ayaa keenta macnaha waxaa kaloo asbaabta ka mida oo keenta waxa loo yaqaano asbaab shahwaaniya yani afduubka waxaa keena asbaab ku saabsan cid ujeedadiisu ay tahay inuu shahwo guto inta badanna qaybtaa waxay ku dhacdaa dumarka daxiyada inta badan dhibanayaasha ku gala waxaa ka mid dumarka weeyaan macnaha oo waxaa dhacaysa in ama gabadhii ama haweenaydii loo afduubto calashaani in shahwo laga guto oo la kufsado oo la faraxumeeyo iyaduna way dhacda oo markaa laga yaabo in ama sidaa lagu soo daayo markii laga danguto ama ay dhici karayso si aynan sir u bixinin in markaa la khaarijiyo ujeedadu markaa ujeeddo maali ama dhaqaalana ma aha siyaasadna ma aha laakiin wax weeyaan uun shahwo ka guda waayo ama shahwo ku guda waayo iyaduna way dhacda tobadana dumarkay ku dhacda inahaas waxa la dhihi karaa waa asbaabta keenta dhaqaalaha noqoto madax furasho ha noqoto siyaasad ha noqoto amni ha noqoto asbaabahaas inta badan